أفري لبعض ساعة جديد كوحريين ماموين كي ودوين كل رايو وحامي كم جرساس أفري لبعض ساعة عسكر أو دبشيلين آلين شرع لين سيد جلّي سيد جلّي راعي لكاني أيقري له دي تدك سيد يقولوا ما عملوا ده تمي خنن أذكر تزدور ده كبدش إذا كمسؤول إذا لبس كوسو جلس إذا غرقوا ديبتي وحسويني قالت مسؤوليتين هذه قادك تدك جل راعي يلا راعي وأنت كاسكتك تدك دليرة وحبرتي ماركيز هل قف وحبرتي أسكري ماركيز ده زوي قف أسكري ودلي أو قف بالآدم تدك لما عملوا كل أي ماركيز أسكري ده marka dawladdu waxa u baaqayna inay dadka ay qoryaha u dhiibayso ee askarta ka dhigayso waa inay ka fiirsataa runta u sheegayna ummadan maanta waxay la banaan baxayso dhibaato aragtay dhibaatadana dadku ma adkaysan karaan runta markii laga hadlo sababtoo cashuura laga qaadaa waa la dilaa dadka dameer maaha lama dul saarnaa karo dawladda waxa ugu baaqayna annagoo ku hadlayo codka shacabka Soomaaliyeed inay wax ka bedesho haddii ka bedeli weyso ha iskaga tagto ummadan xornimo ku noolaanay شعبكن وباقي إني نجوجين مظاهرات كان سدح بالمهن دولة سدح بلا كبار لكن إلا دولة النظام كريمان برنامج كان وصلنا وراي هاي سووا سنة برنامج خلصيهم waxaan aniga waxa dilaayo codka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo ardayda Soomaaliyeed run ahaantii waxaan arday Soomaaliyeed meel walba maanta jidadka ka mid ah naga xiran yihiin isgoos walba way xiran tahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta shahaadada dugsiga sare ee jaamacadda awoodiisan weysan oo bajaaj raaceen oo bajaaj ka qabsadeen magaalka dil ayaa lagu wadaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo waxbarasho maanta aadayaan jidadkii way ka xiran yihiin ayagoo imtixaan u socda meel ay maraan malaan dawladda federaalka Soomaaliya madaxda sare waxaan ugu baaqayaa dadweynaha jidadka in loo furo oo xasilooni la keeno oo dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waa dadkii lagu harsan lahaa بريتو ما تنجدك لقى حرو هادنا للدل صورة مان وحنا نقول باقي دولة إن دانيرت الصوماليات مذيان دانيرت الصوماليات نحن باقي إن مظاهرات سمايان صدق هذا بالجديد كل حرة إلا شيء هاي كان مظاهرات سمايان إلا مثل ما لقى هلو جديد كاسوين بنبح عن قوتنا هرمر كان عن قرنه أنا أقول باقي وين ما سنتين أيوة علي عبد الرزاق صالح عبد الله وكم بدأ تدوينها مقالات مقدشو aadi aad xumaay horta masaakiinta maanta la leeyay teeda labaad horta waxa ku baaqayaan nabadgelyo dadka mudaharaadayna waxaan leeyahay dhagax tuurka iyo ma garanaysaan foodada masaakiinta kale si direysaan ila deysaan hasa ahaatee dawladdan waxaan leeyahay inay xal degdeg keentaa dadkii oo dhagxaan wadooyinka ka yaalo meel ay maraan garan la oo meel qaab ay ku xamaashaan garan la hadan la sii dilayaa aadi aad taaga xumaay dadweynaha nabadgelyan ugu baaqaya insha Allah ta'ala iyo saxasilooni inay mudaharaadaan madaxweyne farmaajo iyo qeyr waxaan leeyahay haddii xal degdeg aadan keenina la socda xasan bashiir aw kale inaan ilmusaafiriin iyo kala wadanka ilmusaafiriin doon sidii madaxweynaha Suudaan oo kale wadadu maray inaan mari doontaan ku talagal haddii xal degdeg keenin alxamdulillah rabbil caalamiin magaciisa waxa la yiraahdaa Shiina Cali Xirsi shacabka waxa uu keenay jacayl eriga maxaa ka kuleelka keenay shacabkii dawladdu wadooyinka wax ka xiratay ma mari kartiin baa la yiri ma shaqaysan kartiin ma noolaa kartiin dhibaatadaas unbaa ummadda kicisay waxaa laga rabaa nimanka mas'uuliyiinta oon doorannay oon u mudaharaadnay oon ku soo dhoweynay waddanka inay shacabka u dhimriyaan inay shacabka dantooda ka shaqeeyaan inay wadooyinka u furaan war umuruhu meel la marsiyaa la waayey dhaawicii meeluu maru waayey kii xamaalanaya waa la dilayaa askarigii inta dila ayaa ayuu qorigiisa haystaa dhibaatadaas ayaa na haysata waxa aan ka cabanayno oo waddanka dhibka u keenay oo maanta mudaharaad suuqaaya keenay waa dhibaatadaas waxaan doonaynaa in mas'uuliyiinta waddanka ay u dhimriyaan dadka shacabka ay dantooda ka shaqeeyaan inay wadooyinka u furaan in dadka shacabka laynta laga daayo dadku waa dadkii idin doortay waa dalkii dadka iska lahaa dalka iyo dalka annaga iska leh hanaga jajabinina hanaga dhibaataynina dhibaato ma rabno dawlad fiican oo xalaala oo noo shaqaysa ayaan rabnay mid dadka laynaysa oo dalka laynaysa oo 3 bilood oo wada xirashaa nagu xukmiday ma xabsi baan ku jirnaa waddankeennii baan joognaa war xagee aadnaa war waddankeena miyaa ka cararnaa war hanugu kallifina waddankeena aan ka cararno war waddankeena inaan jabina hanugu kallifinina war naga daaya dhibaatada war wadooyinka noo fura war aan idinka xamaalanno war waxaan idinka doonaynaa dhibka inaad waddanka daysa ninka dhibka waddanku wade waana